السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي أنا جعلنا هي برنامج كان في النمو هذه جورة لك دعوتان رجاء بروشن تي في يوتيوب وركينا في الدبو حق الدور كرون محمد مدوي عبد الرشيد حدق أودب والله بتم مجالات كسمايو ورعصوب كسوكر أي ضد أفرت رسدية سعاد لو وسنة دات يكون في مجالات قرر صدق وده حيسا إذا مدى الصوماليا يكون كيا حد كأصيح وجيسنا يا واري وأمر دق آسيا قدومياشة هيران إياش بلاد دحي رئيس الوزراء هو صوماليا علي محمد جدي أكدي إلا السياسة عذر كورونا فيروس دولة oo xirtay tobaneeyo kamid ah shacabkii ka qayb galay dibadbixi magaalada Muqdisho asmihi madbacada qaranka Ahmed Faarax Gaatamo oo Muqdisho lagu aasay waxa saaka magaalada Muqdisho lagu aasay Allah u naxariistay agaasimihii madbacada qaranka Ahmed Faarax Gaatamo oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho kadib markii uu wanaha istaagay aaska waxa ka soo qayb galay mas'uuliin ka socota wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo qaar kamid ah warbaahinta gudaha iyo ahlada marxuumka madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta oo marxuumka la soo shaqeeyay muddo dheer ayaa agaasimaha madbacada qaranka ku sifeeyay in uu ahaa shakhsi afgaban oo howlkar ah iyagoona xusay in ay geeridiisa si weyn uga naxeen la u naxariistay Ahmed Faarax Gaatamo ayaa ka soo shaqeeyay warbaahinta gaarka loo leeyahay sida idaacadaha Shabeelle iyo codka nabadda waxaana uu warbaahinta qaranka ka soo qabtay xilal kala duwan sida agaasimaha wakaaladda wararka qaranka Soomaaliya ee Sona agaasimaha raadiyo Muqdisho iyo agaasimaha madbacada qaranka oo uu ku magacaabay geeridiisa ka hor dowladda Soomaaliya ayaa xiray tobaneeyo kamid ah dhalinyaradii ka qayb galay banaanbixii Sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho oo sababay burburinta hantida dadweynaha ee magaalada Muqdisho la xiray ayaa dhamaantood laga soo kaxeeyay guryahooda waana kuwii ka soo muuqday baraha bulshada ee internetka isla markaana jeediya hadallo ka dhan ah madaxda dowladda waxaana ku jira wiilkii soo dejiyay sawirka madaxweynaha iyo qaar kale oo warbaahinta la hadlay sidoo kale xogta aan helayna ayaa sheegaysa in tobaneeyo kamid ah dadkii ka qayb galay banaanbixii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa guryahooda iskaga caray kadib markii waqtiyo kala duwan laga raadiyay guryahooda markii taliska booliska ay soo saareen warqad lagu sheegay in xubno hubeysan laga dhex qabtay dibadbaxayaasha ayaa dad badan ay ka digeen in tani ay tahay qiil loo sameynayo in la beegsado abaabuliyaasha dibadbaxan taasi oo hadda muuqata in ay dhacday ciidamada booliska Soomaaliya ay beegsanayaan dhalinyaro badan oo hormuud u ahaa banaanbaxyada halka qaar kalena ay guryahooda ka carareen kadib markii ay heleen xog ku saabsan in la xir rabo yaro dhar cad ah oo ka tirsan hay'adda ammaanka ayaa la sheegay in ay degeen agagaarka guryaha dhalinyarada ka baxsaday si ay u qabtaan ama ay u soo gudbiyaan xog ku saabsan iyo arrimo kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Ali Maxamed Geedi ayaa ka hadlay xaaladda dalka iyo cudurka halista ah ee COVID-19 oo gudaha dalka Soomaaliya ku sii fidaya Geedi ayaa sheegay in cudurka uu yahay mid khatar ah oo baahan in laga feejignaado isla markaana la qaato talooyinka caafimaad oo ay jeedinayaan dhaqaatiirta iyo hay'adaha kale ee caafimaadka ku shaqeeya si looga hortago maadaama uusan lahayn wax daawo ah oo sheegay in xilliga aan loo baahnayn in la siyaasadeeyo cudurka coronavirus mucaarad iyo dowladba loona baahan yahay in hal meel looga soo wada jeesto cudurka ku sii faafaya dalka gudihiisa waxa uu yiri ayaaman waxa maqlay mas'uuliin kala duwan oo ku celcelinaysa bandowga dowladda ku soo rogtay magaalada Muqdisho sharci ma ahan bandowga ma ahan in gole la geeyo si looga ansixiyo waa go'aan caadi ah ee dowladdu u madax banaan tahay inay qaadato hadii ay xal u aragto ayuu yiri Geedi hadalka Maxamed Ali Geedi ayaa ku soo aadaya xilli qaar kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ay sharci darro ku tilmaameen bandowga xilliyada habeenkii lagu soo rogay magaalada Muqdisho looga hortago faafitaanka coronavirus wararka ka imaanaya xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegay in markale xiisad u dhaxaysa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya sadan dib u soo cusboonaatay ayaa timid kadib markii la sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa Soomaaliya ee ku sugan duleedka magaalada Beled Xaawo ay gacmeed ku tuureen dhanka magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya wararka ayaa sheegaya in falkaasi kadib ciidamada Kenya ay dhaqdhaqaaq cusub ka bilaaween adka labada dal iyadoona saraakiil ka tirsan militariga dalkaasi ay sheegeen in ay ka hortagi doonaan haddii weerar lagu soo qaado sida ay hadalka u dhigeen dhanka kale ma jiro wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha dowladda Soomaaliya ee ku sugan gudaha gobolka Gedo gaar ahaan duleedka magaalada Badaxaawo oo ku aadan eedayntaasi iyo wixii ka dambeeyay markii ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Jubbaland ay ku dagaalameen Badaxaawo ayaa xaaladda hadka waxa ay ahayd mid ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo xoogan kadib markii wasiir janan iyo ciidamadiisa ay galeen magaalada Mandheera Kenya
Kenya oo xiriir dhow la leh Jubbaland ayaa waxaa lagu eedeeyay in ay gabaad siisay wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland oo baxsad ka ah dowladda federaalka Soomaaliya oo kalena ay ka qayb qaadatay dagaalkii labada dhinac u dhaxeeyay madaxweynaha Hirshabelle Mudane Maxamed Cabdi Waare war saxaafadeed soo saaray ayaa waxa uu kaga hadlay dhibaatooyinkii ka dhashay daadadkii xooganaa ee ku soo rogmaday magaalada Qardho. Horeen Waare ayaa ka tacsiyay dadkii shacabka ahaa ee ay waxyeeladu ka soo gaartay daadadkaasi oo ka dhashay roobab mahiigaan ah. Sidoo kale madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa amray odayaasha gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe in ay si degdeg ah ula shaqeeyaan gudiyada gurmadka Hirshabelle State shacabkooda ugu talagaleen walaalahooda reer Qardho. Waxaan aad ula murugoonayaa walaalaheena Qardho oo saameyn culus ay ku yeesheen daadadka ka soo rogmaday roobabkii guga ee dalka ka da'ay. Gudoomiyaasha gobolka Hiiraan Jayta Cusmaan iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Mayre Makaraan waxaan farayaa in si degdeg ah ay ula shaqeeyaan gudiyada gurmadka Hirshabelle sida ay shacabkeeda ugu talagaleen walaalahooda reer Qardho arrintan abaabulkeedana ay horseed u noqdaan ayuu yiri madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare. Ugu dambeyntii wuxuu ku amaanay madaxda maamulka Puntland sida degdega ah ay uga gurmadeen qoysaskii ay saameynta ku yeesheen daadadka waxa uuna ku micineeyay isku duubnida shacabka iyo dawladda in ay horseed u tahay ka gudbidda dhib kasta oo soo wajaha isagoona madaxweyne Dani ku bogaadiyay isku duubnidaasi. Halkan ayaa ku soo aadaya iyadoo oo haatan gurmad aan kala go' lahayn oo ay qayb ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya loo fidinayo shacabka magaalada Qardho. Gudoomiye ku-xigeenka cusub ee maaliyadda gobolka Banaadir oo xilkii la wareegay munaasabad kooban oo lagu qabtay aqalka dowladda hoose ee Xamar ayaa waxaa maanta xilka kula kala wareegay gudoomiye ku-xigeenka cusub ee maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Axmed Xasan Iimaan iyo gudoomiye ku-xigeenkii hore ee Ibraahim Cumar Mahad Alle Ibraahim Dheere. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish iyo mas'uuliin kale oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay munaasabada xilka lagu wareejinayay. Gudoomiye Cumar Filish oo ka hadlay munaasabada ayaa Ibraahim Dheere uga mahad celiyay waxqabadkii muddadii uu xilka hayay isagoona dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka cusub Axmed Xasan Iimaan kula dardaarmay in uu la yimaado waxqabad wanaagsan jibaadkii shaqana uu si hufan u guto. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalmo ka hor u magacaabay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Axmed Xasan Iimaan kadib wareegto xilka qaadis lagu sameeyay ku-xigeenka maamulka maaliyadda gobolka Banaadir Ibraahim Dheere. Weerar bam gacmeed loo adeegsaday ayaa lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa taraafikada dowladda federaalka Soomaaliya oo ku sugnaa isgooska Balaagsi ee magaalada Muqdisho duhurnimadii maanta. Waxaa la sheegayaa in ay goobta ka baxsadeen kooxii weerarka geystay oo aan xeebtooda aan weli la ogaan oo shacab ah ayay dhaawacyo ka soo gaareen qaraxa kuwaas oo isugu jira dad wadada lugeynaya iyo qaar la socday gaadiidka wadada marayay. Laba ka mid ah shanta ruux ee dhaawacyada ay soo gaareen ayaa lagu waramayaa in xaalkooda caafimaad ay aad u liidato sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah. Falkan ayaa ku soo aadaya iyada oo xilli xalay isgooska Maanaboolyo ee degmada Shibas lagu dilay nin ku hubaysan bam gacmeed uu weerar ku geysan rabay kadib markii ay ciidamada rasaas ku fureen.